abaaraha ka taagan gobolada bariga Soomaaliland ee saameynta ku yeeshay nolosha dad iyo dunyaba ayaa sababay inay ka dhashaan xanuuno kala duwan. Deegaanka Coodanle oo ka tirsan gobolka Buuhoodle oo ay isugu soo hayaameen dadka reer guuraaga ah ee ka soo barakacay abaarta ayaa waxa ku geeriyooday inta la xaqiijiyay 12 qof kuwaas oo u dhintay xanuunka shuban biyoodka oo deegaankaas ka dilaacay. Sida warbaahinta u xaqiijiyay Cabdi Maxamuud Cali oo ah mas'uulka deegaanka Coodanle u qaabilsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. waxaan ayaan ugu daryeelaa tuulada Coodanle halkan marka maaragtay halkan mas'uulka caafimaadka ah xanuunku wuxuu bilaabmay marka bishii 10aad dabayaaqadiisi 11aad iyo 12aad dadka xanuunkan shuban biyoodku ayuuna bilaabay waxa dadka dhintay intaan tiradooda hayno area 12 qof laba xagga xaaranka looga soo sheegay oo daryeelo xaaranka ii sheegay 10 aagan ay ku dhimantay 2 of bay ahayd inta kale shuban bay maaragtay ilaahay baa dilay laakiin sababta magaca loo bixiyaa wuxuu ahaa shubankii wuxuu hadda ahaa markii hore shuban biyood hadda wuu isbedelay wuxuu isu bedelay shuban dhiig xundurdhiiga iyo shuban caala labadaasuu iminka isu bedelay. Cabdi Maxamuud Cali ayaa sidoo kale ka hadlay waxyaabaha xanuunkani ka dhashay isagoo wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay laban gurmadka ay u fidinayaan dadka abaartu saameysay. had iyo goorna wuu soo kordhaya sababtoo ah nafaqa darradii dadkoo badatay biyahan ceelka la qoday oo qaraadho ku imaana dadku bartay meesha ka baxay hilibkan dee xoolaha caatankuna waa laba shuban iyo qufci wuxuu isu bedel halkii ugu dambeeyay taagay off amba uga diraya wasaaradda caafimaadka dawladda inay gurmadka iyo mid laban noo soo kordhiso waayo saacad walba wuu sii kordhaya ilaahay naxariistiisa keena mooyaane dee hawadan isbedel mayso. Ahmed Kaafi Salebaan Carab waa Bari TV Burco.